بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شركة كان صحافة waxaanu u qabanay in aanu bulshada deegaanada ceelf weyn dalal weyne iyo aagaas ay shaqaaqada labada beelood ku dhex martay inaanu wacyigelin ka bixino awaamir ka bixino dadkana ka wacyigelino uga warrano warbixin ka siino siday wax uga jiraan deegaankaas oo la og yahay in dhowr goor ay ka dhaceen shaqaaqo iyo iska horimaado laba beelood waxa mar labaad ka soo cusbaanaaday oo wiiga kan toddobaadkan ka dhacay dagaal labadii beelood dhex mara dagaalkaas u dhimasho iyo dhaawac uu geystay ilaa 7 qof ayaa ku dhintay dad 20 ku dhowina waa ku dhaawacmeen waa nasiib darro aad iyo aad baan maxay tahay nasiib darro u tahay bulshadii deegaanka deganayna xasilooni darro badan iyo maxay dhibaato badan oo aan loo baahnayn ayaa ku dhacday waxaanu shirkan u qabanay inaanu halka ka sheegno in arintaas dawladdu ay gacanta ku hayso oo markiiba ay gurmad fara badan dawladdu samaysay oo meel allaaliya meelihii wax ka dhaceen iyo dhammaan meelihii aagagii ay labada reer wada deganaayeen ciidamo iyo awood badan oo dawladdu leedahay la geeyay iminkana ay xasilooni ka jirto dhaawacyadii wixii dhintayna waa dhinteen dhaawacyadiina loo qaaday oo loo kala daadgureeyay cusbitaallo iyo meelo lagu daweeyo oo qaarna burco la geeyay qaarna berbere la geeyay hargeysa la geeyay qaarna burco la geeyay qaarna hargeysa la geeyay kuwaana rajo badan laga qabo badankoodu inay bogsadaan oo ladnaadaan qaar waa jiraan culus oo dhakhaatiir iyo wixii la isku mataqaanaa wax laga qaban kari lahaaba loo diyaariyey arrintaas waa sidaas waxa dawladdu ku jirtaa in hawsha shaqaaqadaas la soo afjaro oo wax allaaliya wixii awoodeeda dawladdu ay xooga saarayso waxaa jirta maxay tahay in meelaha qaarkood laga sheegayay meelo markii hore urursi ciidamo la isugu urursaday iyo gurmad iyo ay sameeyeen laakiin intii ciidanka dawladda uu xooga u galay booliiska iyo military-guba way soo afjarmeen ama way yaraadeen oo haddeerto wax badan lagama sheegayo ama ciidan la isu urursanayo ama gurmad socdaa ma jiro waxaanu haddaba dadka u sheegaynaa in aanu arrintaa dawladdu ay xooggeeda oo dhan saarayso in la qabanayo dhammaan wax allaaliya wixii qoorweynta ah ee loo arko ama dad loo arko inay fidnada sii hurinayaan ama fidna walayaal yihiin waa la qabqabanayaan ilaa 100 iyo dheeraad baanu iminka qabanay oo iminka aanu gacanta ku haynaa kuwa kale badanna waanu raadinaynaa oo raadkoodaanu ku taaganahay waanu qabanaynaa qof allaaliya qofkii lagu tuhmo ama loo maleeyo ama lagu ogaado inuu hawsha dhinac xun kaga jiro oo dhibaatada hurinayo wixii odayaal ah ee waxgaradana waxa laga sugayaa oo laga filayaa laga eegayaa in ay nabadaas siday ku xasili lahayd ay ka qayb qaataan oo ay gacan siiyaan intaas ayaa laga filayaa wixii dhibaatada fidnada ku jirana waa la qabqabanayaa in sidaa loola socdo dawladdu qorshe ay samaysay arrintaa lagu soo afjarayo xasilooni baa iminka la doonayaa ciidamada iyo awoodda dawladda oo dhan waxaa la saarayaa si loo kala fadhiisiyo oo loo kala didiyo dadkaas wixii ka dambeeyana sidii arrintaa loo soo afjari lahaa arrimuhu haddaba waa kala horeeyaan waxaa jirta in arrintaasu sanadkii hore dagaaladii dhacay arrintoodii ballanadii iyo go-aanadii dawladdu ay soo saartay waxaana fuleen waxna weli aanay hirgelin waxaa horta marka hore dawladdu ku dhaqaaqaysaa sidii ay kuwa go-aamadii hore u hirgelin lahayd oo u soo afjari lahayd waqti baa loo qabtay beeluhuna way la socdaan maamulka gobolka iyo ciidamada iyo cid waliba way og tahay halkana waa looga soo ambabaxayaa wixii ka dambeeyana arrintan iminka dhacday iyo kuwii dagaalkii hore ka dambeeyey meelaha qaarkood ka dhacay ayaa ka garnaqoodii iyo maxay tahay sidii iyagana loo soo afjari lahaa dawladda ugu qorshaysan waa muddada intaa bisha ka hadhay iyo ayaamo yar oo bisha soo socota horaanteeda ah
ayaa la rabaa arrimaha in loogu soo afjaro haddaba maadaama qorshihii sidaa yahay waxaa laga filayaa ummadda iyo deegaanka iyo dadka walaalaha ee wada dhashay isku noosha faamiliga ah in ay joojiyaan wax allaaliya wixii arrintaas dib u soo noolaynaya ee hurinaya cid allaale iyo dawladduna go'aan bay gaadhay in aanay wax awooddeeda waxba kalaba hadhin hadday xadhig tahay hadday ciidan tahay hadday qabasho tahay ilaa toogasho iyo dil hadday noqonayso dawladdu inaanay awooddeeda waxba kalaba hadhin sida ay arrintaa ku xakamayso waxaanu dhammaan ka filaynaa oo labada dhinacba ka filaynaa inay sidaas ku talagalaan inay sidaa nagala shaqeeyaan inay gacan dawladda ku siiyaan in waxba lagu dheefi maaye arrimaha colaadda sii hurinaya laga wada waantoobo oo laga baxo ayaanu ugu baaqaynaa baaqaasaanu u soo jeedinaynaa uguna yeedhaynaa dadka oo dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu